Qaylodhaan mawjad, maalintii dunidu gashay aamusnaanta geerida dhammaan waxay u ekaayeen maalin caadi ah. Dadka xeebaha ku nool ee Indonesia, Thailand, Sri Lanka iyo Indiya waxay ku jireen nolol maalmeedkoodii caadiga ahaa. Dabeecadda badda waxa ay ahayd mid deggan. Biyaha badda waxaa ka muuqday iftiin qurux badan oo qorraxda ka tarjumaya. Laakiin maalintaas 26 Desembar 2004 waxay dunidu marag ka noqotay mid ka mid ah musiibooyinkii ugu xumaa ee soo mara bani'aadamka. Dhulgariirka ruxay xeebaha badweynta Hindiya subaxdii hore ee maalintaas. Dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 9.20 magnitude ayaa ka dhacay badweynta Hindiya, meel u dhow xeebaha Sumatra, Indonesia. Dhulgariirkaasi waxa uu ka dhashay dhaqdhaqaaq xoog leh oo ka dhacay dhuunta dhulka hoostiisa, taasoo sababtay in badda si lama filaan ah kor ugu kacdo. Inta badan dadka ku nool xeebaha ma aanay dareemin dhulgariirka, laakiin waxa ay dareemi doonaan waxa ka xigay shil aan hore loo arag oo galaaftay nolosha boqolaal kun oo qof. Biyaha oo dib ugu laabtay badweynta ka hor inta uusan tsunami soo gaarin xeebaha. Biyaha badda si lama filaan ah ayay dib ugu laabteen, iyagoo bannaanka keenay dhagxaan, kalluun shalakh ah iyo burbur badeed oo qarsoona. Carruur badan oo xeebaha ku ciyaaraysay ayaa la yaabay waxa dhacay, halka dad waayeel ahna ay dareemeen cabsi daran. Waxay garteen in tani ay tahay calaamad musiibo ku soo fool leh. Dadka qaar waxay bilaabeen inay ka cararaan xeebaha, halka kuwa kale ay u tageen si ay u eegaan waxa dhacay. Waxa ay ahayd go'aan naxdin leh maxaa yeelay daqiiqado yar kadib, mawjado waaweyn oo sida buuraha u eg ayaa ka soo butaacday badda iyagoo xawaare aad u sareeya ku socda. Mawjadii dhibaatada wadatay mawjadii ugu horraysay waxay garaacday xeebaha Sumatra wax yar kadib dhulgariirka. Waxay ahayd mawjad dhererkeedu dhan yahay 30 mitir. Waxay burburisay dhismayaal, doonyo, guryo iyo wax kasta oo jidkeeda ku jira. Dad badan ma helin fursad ay isku badbaadiyaan, waxay ku ledeen biyaha xooggan ee daadinaya. Mawjadahaas waxa ay halhaleel ku gaareen xeebaha Sri Lanka, Thailand iyo Indiya, iyagoo baabi'iyey magaalooyin, tuulooyin iyo dad aad u fara badan. Xeebaha Phuket ee Thailand, dalxiisayaal badan oo fasax ku jiray ayaa si lama filaan ah u arkay mawjado waaweyn oo ku soo socda. Qaarkood waxay isku dayeen inay ordaan, laakiin xawaaraha tsunamigu waxa uu gaadhay 800 kilomitir saacaddii, taasoo la macno ah in aysan jirin meel laga baxsado. Geeridii xad-dhaafka ahayd mawjadii 2.4 waxa uu dilay in ka badan 230,000 oo qof oo ku kala sugnaa 4 dal oo kala duwan. Boqolaal kun oo kale ayaa ku dhaawacmay, halka malaayiin dad ah ay guryahoodii waayeen. Waxaa jiray dad laga helay meydadkooda boqolaal kilomitir u jira halkii ay joogeen markii ay mawjaduhu qaadeen. Qaar badan lama helin weligood. Dhibaatada kadib iyo badbaadintii masiibadani waxay dhalisay mid ka mid ah dhulka hoosteeda samafalka ugu ballaaran ee abixaya buuraha iyo dooxooyinka wadamo badan iyadoo samafal iyo dad caadi loo waxay isugu tageen si ay gargaaro. Waxay ahayd haweenay xoog badan, biyo nadiif leh oo awood u leh inay maamusho qabiilo badan dadkii ay masiibadu saamaysay. Si kastaba ha ahaatee, murugada masiibadaasi waxay raad weyn ku yeelatay dunida oo dhan. Dad badani weli ma iloobi karaan maalintaas. Waa xusuus murugo leh, balse sidoo kale waxay noqotay cashar aad u weyn oo dunida baray muhiimadda ay leedahay in la diyaargaroobo musiibooyinka dabiiciga ah. Gabagabo maalintaas naxdinta lahayd ee Desembar 2004 waxay dunida xasuusisay awoodda cabsida leh ee dabeecadda. Mawjadgii badweynta Hindiya wuxuu ahaa mid aan hore loo arag, wuxuuna beddelay nolol badan. Waxa uu noqday xasuus murugo leh oo aan weligeed la ilaawi karin. Dadkii badbaaday waxay sheegeen in ay mar walba dareemaan baqdin markay maqlaan ereyga